dowladda dimuqraadiga ah ee Congo waxaa safar la sheegay inuu qaadan doono muddo 2 maalin ee ku tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ee Farmaajo oo gaadhay waddankaasi Congo habeennimadii xalay ahayd waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dowladda Congo Felix Anton xilligan haya jagada gudoomiyaha ururka midowga Afrika kulankaasi oo ka dhacay magaalada Kinshasa ee waddanka Congo waxa uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ku sheegay in kulankaasi dhex maray Farmaajo iyo madaxweynaha Congo ay ka wada hadleen xidhiidhka labada dal sida wasiirka arrimaha dibaddu sheegay waxay labada madaxweyne ka wada hadleen doorka midowga Afrika ee Soomaaliya isagoo hadalkiisa ku gunaanaday in safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay Congo aanay ka duwanayn safaradii madaxdu ku tagi jireen waddankaasi balse qoraallo gooni oo madaxtooyada Congo la wadaagtay bogageeda Twitter iyo Facebook waxay ku sheegeen in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya waxa kale oo qoraalladaasi lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ka gaabsaday inuu la hadlo warbaahinta sababo la xidhiidha codsi ka yimi madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale qoraallada ay baahisay madaxtooyada Congo waxa ka mid ahaa in madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday dhigiisa Congo inuu dhexdhexaadiyo sidii wada xaajoodu la furi lahaa mucaaradka Soomaaliya ee diidan xilligan muddo kordhinta ay baarlamaanku u sameeyeen madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaad hore warbaahinta Warsan News ugala socoteen madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxa uu codsi u dirsaday ku saabsanaa inay kulan la yeeshaan mucaaradka isagoo fariintaasina u dhexmariyay labada madaxweyne maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug balse mucaaradka ayaa ku gacan sayray dalabka madaxweynaha ee ah inay aqbalaan kulankiisa haddase madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u muuqday inuu xal ka waayay golaha ayaa ka raadinaya dibadda Soomaaliya waxayna madaxtooyada dowladda dimuqraadiga ah ee Congo shaacisay in madaxweynuhu ka aqbalay dalabkii Farmaajo ee ahaa dhexdhexaadinta isaga iyo mucaaradka Soomaaliya wixii warare ee arrintaasi ka soo kordha waxaad kala socon doontaan Warsan News daawade maxay kula tahay adiga dhinacaaga